amal bank habka loo naqshadeeyay hanaanka loo casriyeeyay xarumaha loo habeeyo adeegyo aan hakan iyo shaqaale heegana heedha loogu diyaarshay mar un soo hagaag amal adiga haaka orane haddii ay wax badan hadal la dhoobiyo heesa ay ku tirsheen oo humaag been iyo hawo baanka aan jirin heedha ku tilmaameen cagku hantidaadiyo kuwa hoday naftaadii ha yeeshee ilow oo haddaba ilow shalay hadimadoodii habowgay kaa dhigeen haatanna iga hoo banka la hubiya aniga ku hibayn talo aad ku hodmaysee amal bank waa bank himiladiisu iyo hadafkiisuba yahay bulsho horumarkeediyo hanti dhowristeedoo hufnaan adeegiisa iyo hab islaamiyo sugan ugu helan dadkiisa hoyga raas caseer iyo hareeraha kambooni halka awdal taaliyo hadka geeska waqooyi xafiisyo aad ku hagaagtiyo had iyo jeer amal baa heegan kugu ah waa xawaare ama daqiiqo xawli aan lagu gaarin cid kastoo mushtaraysa cirifyada adduunkuna caqli buu u hayaa iyo adeeg caawinaya xitaa adiga waa adiga haddaad kay dhiganayso haddii aad guur hibanayso haddii aad xaramaynka hantidaad ku tegi lahayd heegan u sii noqonayso mahuraanka iyo halka aad dhiganayso hubaal waa amal bank kaalayoo ku dirso ku kaydso ku kobocso ku maalgasho kala socodsi howlaha amal waxay ku howlgashaa hanaan shaqo oo casri ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال فدغا محكم لي فدغدني أن كجهد ليني أحكامته يا أخلاق دا جناسية إسلام هو تلقى لي جناستلو inay ku dhaqmaan waxaan hore uga soo hadalnay mabaadi guud oo uu leeyahay ganacsigu ama xoogsigu uu leeyahay oo ay ka mid ahayd in qofka muslimkii aamino ilaahi subxaanahu watacaala uu qadaray wax walba oo dhacaya qof walba waxa uu helayo adduun iyo xoolo ilaahay inuu sii jaangooyey inaanay waxaasi soo kordhayn inaanay yaraanaynin waxaan kaga soo hadalnay in sharcigu dhiirigeliyey xoogsiga xalaasha ah waxaan kaga soo hadalnay in sharcigu balballaariyey waddooyinka mamnuuca ah xaaraamtaah aan loo mari karin xoogsiga iyo ganacsiga waa marka iyada nafteeda faahfaahin badan lahayd insha allahu tacaala waxaynu maanta bilaabeynaa qaybtii axkaamta ganacsiga oo markaynu kaga hadlayno guud ahaan mucaamalaadka maaliga ah ama waxyaabaha dadku ku heshiiyaan ee dhaqaalaha khuseeya iyo xoogsiga anwaacdooda kadibna waxaynu u gudbaynaa insha allahu tacaala ganacsiga ama beeca iyo wax kala iibsiga iyo arkaantiisa iyo shuruuddiisa haddii alla idmo guud ahaan walaalayaal waxyaabaha heshiisyada ah dhaqaalaha iyo xoogsiga iyo ganacsiga gala waxaa culimadu ay u qaybiyeen ilaa 4 qaybood heshiisyo wax kala bedelasho ama wax isweydaarsi iyo ganacsi sida iibka iyo karaysiga iyo wixii la mid ah heshiisyo tabaruc iyo deeq bixin sida hibada iyo hadiyadda iyo sadaqada iyo wixii la mid ah oo qofku dhaqaale cid kale guddoonsiinayo isagoo waxba bedel ah ka qaadanaynin nooca saddexaad waa heshiisyo lagu xoojinayo heshiis hore oo ganacsi oo marka heshiis gooni u taagan ma aha laakiin dad heshiis ganacsi galay ayaa waxay galayeen heshiis labaad oo kaa xoojinaya waxaa ka mid a rahanta ama culaadha wax af soomaaliga loo yaqaano oo qofka haddii maalan inta laga iibiyo badeeco deen lagaga iibiyo qofkii iibiyaha ahaana aan markaasi kalsooni badan ku qabin in qofkaas lacagta soo celinayo wuxuu xaq u leeyahay iibiyuhu inuu ka qaato qofka laga iibiyey culaadh ama rahan hantima guurta ha noqoto sida guryaha oo kale mid guurta ha noqoto sida gaadiidka iyo gawaarida iyo wixii la mida
in qofku curaal u qaato marka curaada yar ahaantaasi iyadoo heshiis iskii u taagan maaha laakiin waxaa weeye heshiiskii iibsiga bay kaaba u tahay ama ay markaasi xoojinaysaa waxaa ka mid heshiisyada la xoojiya in lagu xoojiyo damaanadda qof baa aad wax ka iibisay deyn baad ku siisay damiin baan kaa doonayaa baa tiri haddii lacagta aad bixin weydo cid markaas lacagtaa bixisa oo hantiilo ah waxaa ka mid a kafaalada oo damaanadda ku dhow oo macnaheedu yahay qofkaa wax laga iibiyey aqoon badan uma lihid ama haddii beedmahayo meeshuu degan yahay iyo tafaasiil badan cinwaankiisa kama haysid marka waxaa dalbas anigu kuma aqaana waan ku deeninayaa laakiin cid ku taqaana ii keena markii aan kuu baahdo aanan kaa waayin heshiisyada noocaasa markaa waxaa la yidhaahaa cuquud atawhiiqaat waa heshiisyo lagu adkeynayo heshiisyo ka horeeyey oo wax kala bedelasho ama wax kala iibsi waxaa ka mid ah heshiisyada dhaqaalaha gala iyo xoogsiga cuquud mushaarakaat oo macnaheedu yahay heshiisyo lagu shirkoobayo oo sharikaadka iyo waxaynu u naqaano baa markaas iyaga lafta heshiisa leh ama wax kala duwan leh oo marka labada qof waxba isku darsanaya iyagoo uga jeeda inay hadhowto dheef iyo faa'iido ay wada helaan oo ganacsiga ay sameynayaan wax ka wada helaan marka iyago kala ganacsan maayaan lakiin waxay isu kaashanayaan inay ganacsi wadaagaan ay ka filayaan inay faa'iido wacan ka helaan kadibna faa'iido ay qaybsadaan inay markaa anwaac badan insha allahu tacaala xilligeeda waynu ka hadli doonaa haddaan usoo noqonno heshiisyada wax kala bedelashada ama isweydaarsiga waxaa ka mida oo kow ka noqonaya bamili iibka iyo beeca marka insha allahu iibka iyo beeca iyo qeexidiisa arkaanta iyo tirirka uu ku taagan yahay iyo shuruudiisa insha allahu tacaala fadhan kaga hadlaynaa marka koowaad baycu waa kelmad carabiya macnaheeduna luqa ahaan uu yahay mubaadalatu shayin bishay calaa wajhi mucaawada qofku shay inuu ku bedesho ama shay ka horgeeyo ku bedelanayo xagga erebixinta sharciga waxaa culimadu ay leeyihiin tamliiku caynin maaliyatin ama manfacatin mubaaxatin cala ata'biidi calaa wajhi mucaawada waa qofka in la guddoonsiiyo cayn shay in la guddoonsiiyo wax la taaban karo ama manfaco mubaaxa yacni waxtar kale oo aan shay maxsuuso la taaban karo ahayn in la guddoonsiiyo si weligii uu yeelanayo loo guddoonsiiyo bedela laga qaato markaa mid qofku waxaa la guddoonsiinaya badeecad ama shay ama guri ama waxun la taaban karo ama waxaa la siinayaa waxtar kale oo markaasi uu ka faa'iidayo ama ku intifaacayo weligii uu ku intifaaci karo ama cayntaas weligeed uu yeelanayo ciwad iyo bedella waa laga qaadanaya adduunye ah marka taasaa waxay culimadu ay idhaahdeen waxay noqonaysaa qeexitaanka beeca xagga sharciga marka laga eego walaalayaal beecu waa shay ku bannaan shareecada islaamka sida horeynu u tilmaamay ilaahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay wa axala allahu albeyc ilaahay beeca waa xalaaleeyey sidaasi la eg axaadiista nabi sal alla alay wasalam waxaad ka dheehanaysaa in markaa beecu xalaal yahay waxaa ka mid a xadiiskii saxiixa ahaa in nabi sal lla alay slam uu yihi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa labada qof waa kala iibsanayaa qof waliba waa xor weeye wuxuu xaq u leeyahy iibkeydu markuu doono ka baxo intaanay kala tegin inta gogorta ku socda iyo hataa hadday heshiiyaan iyo intaanay kala dhaqaaqin oo oran kale uu yahay iga cafi beeci ama haddii beed mahayo waan ka baxay waxay qaadana waxayisi laakiin hadday kala tagaan xaq uma leh marka qofkood inuu keligii ka baxo iibka danka kale raalli uga noqon oo markaas ka aqbalin xagga sunnaha nabi sal ly slam waa iibsaday oo sida xadiiskii macruufka ahaa ku sugnaa jaabir wuxuu ka iibsaday awr markaasi uu jaabir bin cabdillaahi leeyahay saxaabiga jaliilka radi allahu tacaala canhu ardaa xagga ijmaaca culimada islaamku way isku waafaqsan tahay beecu inuu bannaan yahay ama xalaal yahay adilada kitaabka iyo sunnada iyagoo ictimaadaya ama cuskanaya waxay culimadu isku waafaqsan yihiin in markaasi beecu uu bannaan yahay sharci ku bannaan yihi xagga marka laga fiiriyo caqliga bini aadamka waxaynu fahmi karaynaa in iibku uu bannaanaanayo waayo waa sharciga marmaan u ah nolosha bini aadamka
qofku wuxuu u baahan yahay waxyaabo fara badan wuxuu u baahan yahay hoy uu dego wuxuu u baahan yahay hoy uu xidho wuxuu u baahan yahay cunto wuxuu u baahan yahay adeegyo kale oo fara badan buu u baahan yahay qofku markaa keligii awood u heli maayo wax walba oo u baahan yahay inuu ku qabsado isagu gacantiisa iyo caqligiisa iyo kartidiisa iyo awooddiisa marka wuxuu u baahan yahay wax dadka kala hayaan qof baa dadka sameeya laakiin gaadiidka ma sameeyo ama guri ma dhisi karayo ama haddii ba cunto ma beeran karayo iyo wixii la mid a qof baa haddii bayd ma hayo warshad la gawaadhida soo saarta laakiin cuntada ma beeri karayo ama haddii bayd ma hayo dharka ma samayn karayo ama guri ma dhisan karayo iyo wixii la mid a marka bani aadamka ilaahay awoodda waa u qaybiyey xirfadda iyo haddii bayd ma hayo farsamada waa u qaybiyey qofba waxbuu gacanta ku haya ama arsaaqda waa u qaybiyey qofba waxbuu gacanta ku hayaa qof waliba intiisu kuma fila wuxuu u baahan yahay cidda kale waxay hayso ayuu u baahan yahay inuu helo bani aadamkuna dadka bilaash wax kuma siiyaan mar walba oo waxaa weeye wax kastoo aad u baahato inaad bilaash ku hesho ama deeq iyo taro aad ku heshaa wax suuragal ah maaha oo bani aadamku wuxuu ka samaysan yahay lixda jeclo iyo haddii bayd mahayo yuu ka samaysan yahay marka qofkii wuxuu u baahnaa cid kale gacanta ku haysay asaan la siinaynin oo markaasi aan bilaash lagu sa wuxuu u baahan yahay inuu weji kale ku helo wejiga u sahlan waxaa weye isna inuu wax bixiyo isna wax qaato oo marka qofkii waxaa u baahan yahay gacanta ku hayay inuu wax kaga bedesho isna uu markaasi hayo awoodayo sidaa darteed caqliga bini aadamkuna wuxuu garan karayaa in laga maarmaan tahay iibka in la baneeyo oo markaasi dadka loo baneeyo si qofku baahidiisii u gudan karo oo wixii u baahnaaye ka maqnaaye aan awoodda u lahayn cid kale gacanta ku haysay ugu heli karo waddo fudud oo ah isna markaa inuu wax bixiyo isna wax qaato markaa beecu waa ku bannaan yahay shareecada islaamka sida aynu tilmaamnay adilada kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaac culimada iyo xitaa caqliga bani aadamku markaas uu tilmaamayo walaalayaal beeca iyo ganacsigu wuxuu leeyahay arkaan iyo tiro uu ku taagan yahay buu leeyahay arkaanta culimada ee madaahibta islaamku waa ku kala duwan yihiin madhabka xanafiyada waxay qabaan arkaanta beecu waa mid keliya bay leeyihiin oo ah siiqada ama qaabka heshiiska loo galay oo keliya qofkii dhow waxaa siga yimi intaa bas iyo kaa iibiyey intaa weeye arkaanta beeca iyo wax kale iibsigu bay yidhaahdeen laakiin jumhuur culamaa madhabka maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada iyo xitaa culimada kale waxay qabaan arkaanta beecu inay 3 qaybood tahay marka si duuduuban loo sheego qaybta koowaad waxaa weeye asiiqa ama waxaa weeye qaabka heshiiska loogu dhawaaqayo oo bani aadamku waxa uu u baahan yahay waa inuu ku caddeeyaa dhawaqiisa iyo hadalkiisa iyo ficilkiisa inuu ku caddeeyo wey marka qaab dhawaaqa ama qaab heshiiseedka waa rukunka koowaad rukunka labaad waa labada qof wax kala iibsanaya oo haddaan laba dhinac la helin oo wax kala iibsanaya dee iib ma dhicin qofku naftiisa waxba kama iibin karo qodobka saddexaad qaybta saddexaad waa wixii la isku bedelayay oo markaasi lacagtii iyo badeecadii ah iyo wixii lamid ah markaasi duuduub marka loo sheego waa saddexdaa haddii lasii balballaariyo siiqada ama qodobka koowaad oo siiqada ah oo qaabka heshiiska loo gelaya isaga islama u qaybsamaa iijaab iyo qabuul iijaabku waxa weye qofku inuu iibkii bandhigo oo shayga waan kaa iibiyey intaasaan kaa siiyey ka iibsanayna uu yidhaahdo waan aqbalay intaa waan siistay marka iijaabkuna waa cardigii iyo bandhigii iibka qabuulkuna waa aqbalidii iyo qofka darafkii labaad wax iibsanaya inuu yidhaahdo waan kaa siistay intaa iyo wixii lamid marka siiqada waa labadaa qaybood iijaab iyo qabuul oo marka hal rukni weyn bay isku tahay laakiin laba rukni waa loo dhigi karaayo waa la odhan karayaa qaabka heshiiska loo geliyo laba dhinac buu ka dhacaya dhinac bandhiga iyo iibkii iyo dhinac aqbalaya haddee bay marka mid waliba wuxuu leeyahay qaab ugu dhawaaqayo heshiiska ama uu u muujinayo rabitaankiisa uu markaa rabo in markaa waxaa iibiyo ama iibsado marka iijaabkii qabuulku waa laba rukni waa la odhan karaa sidaas ilay cidda heshiiska gelaysaa iibiye iyo iibsade iyaga laftooda waa laba qaybood baa la odhan karaya halkaas waa 2 iyo 2 waa 4 qaybta saddexaad waa waxa la isku bedelanayo ama la isweydaarsanayo oo ah
lacag iyo mabic shay la iibiyey iyadoo waa laba qaybood marka waxa weeye haddii la balbalaariyana waa 6 arkaanta beecu oo waxa weeye qofku bandhiga iibkii oo ka iibiyey iyo ka iibsanaya waa iibsaday yiraahdo labadaas oo dhanna isku hal qodob oo siiqa dhanna laba qaybood kala ah oo ka iibinayay ka iibsanaya dhawaaqoodii iyo cabraadoodii ay cabrayeen waxa ay iibsanayaan rabitaankiisa ama iibinayaan rabitaankiisa labada qaybood oo loo dhigi karayaa iyo iibiye iyo iibsade oo iyaduna laba ah haddii la duuduubana labada dhinac ee caqdiga ah iyo qaybta saddexaad oo ah wixii la isweydarsanayo ah lacag iyo badeecad arkaanta markaa 6 ah haddii beeca laga waayo beeci ma ansixin macnihii marka leeyahay waxaan waa rukun weeye ama waa tiir ka mid ah tiirarka shaygaasi uu ku taagan yahay waxaa laga fiiriyaa haddii beed maayo shaygaas inaanu socon karin ama aanu ansaxaynin haddii markaasi la waayo oo markaa iibkii aanu ansaxay tiirkiisii rukunkiisii markaasi la waayo marka arkaanta haddii la waayo iibiye iibma dhicin haddii la waayo iibsade iibma dhicin haddii la waayo qaab loo bandhigayo ama loo muujinayo iibka iyo ganacsiga oo qofka iibsanaya ama qofka iibinaya dhawaaqiisii iyo raalli ahaanshihiisii haddaan la helin iibkii ma ansixin ka iibsanaya ogolaanshihiisii qiimaha shayga uu ku aqbal haddaan la helin iibkii ma ansixin haddaan la helin wax la iibinayo iib ma ansaxayo iibba ma jiro meesheedaan soomaalidu maxay ku nugtaa maxay ka nugtaa haddii aan la helin lacag iyo ama wax u dhigma oo hantiya oo wax lagu bedelinayana iibkii markaasi ma ansixin wey idan 6 tiir waa arkaanta uu leeyahay iibsiga iyo iibka iyo beecu haddii mid ka mida la waayo iibkaas ansixi maayo walaalayaal markaynu hoos ugu degno 3 rukni guud ama 6 rukni hadba san u dhigno waxaan ku bilaabaynaa siiqada iyo qaabka haddii beed maayo iibka lagu dhawaaqayo ee qofna uu sheegayo inuu u baahan yahay waxa iibsada kale uu leeyahay waan ka iibiyey marka culimadu waxay leeyihiin qaab heshiisiyeedku hadal ahaan waa ku dhici karaa waana sida badan culimadu isku waafaqsan tahay in qofka wax iibinaya ka iibsanaya mid walba uu hadal ku cabiri karo ama hadal ku sheegi karo waxa uu doonayo iibkiisa ama iibsashadiisa waana sida asalka u ah iibka qofku waxaasan iibsaday ama kaa iibsaday ama misal la siin intay ka siistay waa shayga ugu horeeya ee lagu muujin karo qaabka heshiiska loo gelayo ama rabitaanka iibka loo muujinayo culimadu isku waafaqsan tahay waxa kale culimadu ay ka hadlaan iibku qoraal ahaan ma ku ansixi karaya jumhuur ulama ama culimada badankoodu waa ogol yihiin oo qofku waxa uu iibsanayo hadduu dalabka ku qorto warqad oo yiraahdo waxaad iga iibisaa bakhaarkii intuu warqad soo qoro boqolkii shobris lacaynta leeyaga si warqadii markay soo gaadho bakhaarkii waa aqbalay ama hadal ku muujiyo ama isna qoraal uu qoray yiraahdo u gudbay yiraahdo waan ka iibiyay lacagtaas sheegtay waan ka siistay iibkii waan saxaya sida culimada islaamka badankoodu ay qabaan qaybta hore hadalka ah ayay isku waafaqsan yihiin qofku inuu hadal ku sheego waxa uu iibsanayo ka iibinayaan uu hadal ku sheego waxa uu iibinayo ama aqbalkiisa yaraalaanshiisa qaybta labaad oo ah qoraal in lagu muujiyo culimada qaar waa ka hadlay ama karaahiystay ama diiday laakiin jumhuur ulama ayana waa ogol yihiin oo waxay leeyihiin qoraalku ama qalinku waa axad lisaanayn labada carabidkood wey carabka dhaqdhaqaaqaya ee afka ku yaala lagu hadlo iyo ka gacanta qofku ku muujinayo hadalka laftiisa ku qoriyo waxay kala qaacida ahaan culimadu u sheegaan qaacida fiqiya alkitaabu kalkhitaab qoraalku wuxuu la mid yahay hadalku la mid yahay hadalka ayuu la mid yahay bal waxaa leeyihiin culimadu meelaha qaar haddii la fiiriyo qoraalku isaga ka xoog badan hadalka afka laga yiraahdo waayo hadalkaasi markaa la yidhi buu ku egyahay waana dhammaanaya laakiin qoraalku xagga cuskashada iyo caddaynta marka la fiiriyo wuu ka xoog badan yahay hadalka oo qoraalka xoog badan oo hadda haddii wixii loo baahdo
la isku qabsado heshiiskii ganacsiga wixii la mida maxkamad la isla galo qoraalku waa caddayn haddii qofka fartiisa la yaqaano ama saxiixiisa iyo shaabadiisa iyo wax la mida uu saaray qoraalka waxa weye qoraalku caddayn buu noqonayaa la ictimaadi karo ama la cuskan karo idan qoraalku isna waa shay labaad ama waa nooc labaad ama waa qaab labaad oo ku ansaxayo iibku in qoraalka la ictimaadayana oo la cuskan karna waxaa ku tusinaya nabigu sal alla alay wasalam dacwadiisa wuxuu ku gudan jiray qaar ka mida qoraal ku gudan jiray oo boqoradii xilligaa noolaa wuxuu u qori jiray qoraallo uu kaga dalbayo inay markaas islaamka soo raacaan oo soo hanuunaan heshiisyada lagu gelayey oo sulxulxudaybiye oo kale markii gaalada quraysheed ay hor istaageen saxaabadii nabiga sal alla alay wasalam oo cumradii u diideen aakhirkii heshiiskiina qoraal baa laga dhigay oo markaa inay wada galin nabiga sal ly slam iyo markaa madaxdii qurayshada markaa halkaa marayay marka qoraalku isna waa qaab labaad oo loo muujin karo heshiiska ganacsiga waxaa qeyb saddexaada ficli lagu muujiyo oo culimada ay u yaqaanaan bayculmucaataa khilaaf badan baa markaasi ku jira laakiin isna jumhuurka culimmadu waxay qabaan bayculmucaataa inuu markaas isaguna uu sax yahay oo bannaan yahay oo qaabkiisu uu yahay qofku hadalla ku sheegi maayo iibka qoraal la ku sheegi maayo laakiin wuxuu samaynayaa maalan sida hadda macruufka ah subermarketyada iyo dukaamada waaweyn alaabtu way sicirkeedii ama qiimaheedii way qiimaysantahay uu ku dhegsan yahay maalan wuxuu soo gelayaa qofku dukaan buu soo gelayaa guduhu u gelaya soo adeeganaya alaab buu soo qaadanaya dhar iyo cunto iyo wax lamida mid kasta sicirkeedii ama qiimaheedii ku yaallo counterkii buu imanaya meeshii uu fadhiyey qofka haddii maqalka haya ee lacagta qabanaya markaa alaabtiibuu u dhiibaya alaabtiibuu eegaya qiimaheeda uu isu geynaya ama mashiinka la saaraya waxaa la xisaabinaya combyuterki la xisaabinaya kadib wuxuu intaasaa lagugu leeyahay lacagtii uu miiska dhigaya uu ka dhaqaaqaya iga iibi iyo kaa iibsaday iyo imisaa iga sin intaasaan kaa siinayahay waxaasoo dhan markaa waa laga gudbay marka maxaa la yidhaahdaa waa siiqa ficliya ama waa qaab iibsi ficil lagu muujiyey ee aan hadal lagu muujin wey kaasi markaasna culimada qaar baa diiday laakiin sida loo badan yahay isaguna waa bannaan yahay oo waa shay sharciga ku bannaan ujeedkuna waxaa weeye in qofku shaygan raalli uu ka yahay qiimaha inuu siiyo in la ogaado wey hadduu isagii markaa dukaanka hayay qiimo ku dhajiyey macnuhu waxaa wey qiimaha haddii aad siisan isagoon kaa iibinaya dukaanku waxaa u fartay iib waxaa dadku usoo gelaya inay wax iibsadaan alaabtii waa qiimaysan tahay qofka marka uu soo qaadaya miisku soo dhigaya kuu eegaya lacagtuu dhigaya uu ka baxaya marka qaabka noocaas isaguna waa bannaan yahay culimada badankooduna waa baneeyaan waxaanay u cuskadaan axaadiista iyo aayaadka allah subxaanahu watacaala ma ay muujin qaab gaara oo lagu dhawaaqo heshiiska iibka oo wax xadiida iyo wax aayada oo odhanaya markaad wax iibsato waxaad tidhaahdaa aada iibsanayso bicni iga iibi ka ay iibinayaan aa idhahdo bictuka waan kaa iibiyey wax nasa oo shareecada ku sugan oo tilmaamaya qaabkaasi ma jiro laakiin culimmada shardiday in siiqadu ay qowli noqoto haddee bayd maayo qaabka heshiiska lagu dhawaaqaya inuu hadal noqdo culimmada isku adkaysay ee shardiday waxay u cuskadeen aayaadka iyo xadiiska tilmaamaya in beycu ku dhisan yahay haddii bayna ka raalli ahaansho inama albaycu can taraad xadiiska nabi sal sl ibn maaja iyo keyrkiiba ay warinayeen albaanina uu saxiixiyey waxaa markaasi nabi sal slam uu yihi baycu waa isaga raalli ahaansho oo wixii la isaga raalli yahay baa la kala iibsanaya ama wuxuu ku dhisan yahay taraadi iyo ka raalli ahaansho ku dhisan yahay iibku iyo aayaddii ahayd allah subxana wataala u lahaa ya ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ila an takuna tijaaratan can taraadin minkum dadkii iimaanka laga helayo ee ha ku kala cunina xoolihiina si baatil ah oo markaa xaaraan ah laakiin ganacsi ay raalli isaga tihiin ku kala qaata xoolaha marka kelmadda ah in raalli la isaga yahay beeca oo ka mida shuruudda beeca aynu tilmaami doona haddii ilaahay idmo qodobkaasaa markaa culimmadu qaarkood ku dhegtay
waxay yidhahdaan raalli ahaanshaha waxaa lagu muujin karaa oo keliya hadal. qofkan waxa uu maagan yahay inuu iibkan raalli ka yahay, inaan raalli ka ahayn, inuu qiimahan inuu siisto ogolya inaan ogolayn. waxaasoo dhami waxay ku caddaanayaan markuu afka kaga dhawaaqo. uurka waxa ku jira cidna ma ogaan karto. waxa afku wakiil ka yahay inuu muujiyo oo caddeeyo waxa uurka qofku ka aaminsan yahay ama uu ka doonayo. sidaa darteed waxay dhahan waxaa laga maarmaan qofku inuu iibka iyo ganacsiga iyo heshiiska uu gelayo uu hadalkuu muujiyo, afka ka sheego, ka kalena uu afka ka aqbalo oo waan kaa iibiyey intaa waan kaa siiyey wixii la mida uu yidhaahdo. laakiin jumhuur culamaa waxay leeyihiin kelmadda raalli ahaanshuhu kuma xidhna afka oo keliya. qofku hadduu wixii intuu soo qaado isagoo qiimihii ku yaallo uu miiskii keeno oo lacagtii dhigo oo shaygii la baxo, macnaheedu waxaa weeye inuu iibsado oo sa raalli ku yahay. kan dukaanka haystaana mar haddii sicirkii uu ku dhigay ku qiimeeyey shayga haddee bayd mahaye lagu ogolaaday oo lacagtii lagu bixiyey una ogolaaday qofku in alaabtii la baxo dukaanka kala baxo, taa macnaheedu waxaa weeye isna inuu raalli ka yahay. marka raalli ahaanshuhu kuma muuqdo oo keliya hadale ficilaba ku muuqan karaa bay leeyihin. xilliyada qaarna waxaa laga yaabaa beecu ama heshiiska qaabka loo gelayaa labada dhinacna inuu ka yahay hadal, dhinacna ka yahay ficil. maalan wuxuu leeyahay alaabtu soo qaadayaa, miiskuu soo dhigayaa, wuxuu leeyahay haddee bayd mahayo iga iibi oo waxaad iga siisaa $10, dabeedna alaabtii wuu u dhiibayaa, 10 buu ka qaadanaya, qofuu iska baxaya. ama wuxuu odhanayaa maalan alaabtan qiimaheedu waa imisa, dabeedna intuu dhiibu wuxuu odhanayaa markaa ka qiimaha iska eegayaa, lacagtuu dhigaya iska baxaya. marka labada dhinacna ficil buu ka yahay, dhinacna qowl buu ka yahay, iyana waa shay iska bannaan bay leeyihin. qoraalkan waynu ka hadalay isna in lagu muujiyo siiqada iyo haddee bayd mahayo iyo qaabka loogu dhawaaqay heshiiska in lagu muujiyo qoraal iyaduna markaasi mid bannaan weeye, waayo qoraalku wuxuu la mid yahay hadalka ayuu la mid yahay. walaalayaal intaynan ka gudbin siiqada waxa ay leedahay siiqada iyo qaabka heshiiska loo gelaya shuruud bay leedahay. culamada islaamku shuruudaha waa ka hadleen. waxaa ka mid ah shardiga koowaad muwaafaqatu liijaaba lilqabuul, macnihii qofku hadalka uu ku bandhigayo iibka iyo ka kale wuxuu ku aqbalayaa waa in isdaboolaan. wuxuu maalan yidhi shaarkan iga iibiyo $10 iga sii, kii kale wuxuu 12 baan kaa siiyey. sidaa heshiiska kuma dhicin, waayo iskhilaafsan yihiinba, heshiisba ma jiro. midna 10 buu ku doonaya, midna 12 buu ku iibinaya. marka inay iswaafaqaan haddee bayd mahayo heshiiska labadiisa qaybood oo ijaabka iyo qabuulka ama bandhiga iibka iyo aqbalidiisu inay isdaboolaan oo iswaafaqaan waa shardi wey. maalan hadduu yidhaahdo shaarkan iga sii $10 oo sacuudiya, markaas waxaan kaa siiyey $10 oo maraykan ah, heshiiskaas ma ansixin, waayo 10 iyo 10 wey, lakiin 10 waa nooc, midna waa $, midna waa riyaal weeye, ismana dhigmaan. marka meesha heshiiska ma ansixin ilaa ay yidhaahdaan $10 iga siiyo 10 riyaal baan kaa siiyey, ama waan kaa siiyey hadduu yidhaahdo oo riyaalkii markaasi ujeedo iyo 10 riyaal ujeedo, iibkaas markaas heshiiskaas waa sax wey. waxaa kaloo ka mida shuruud culimada ay tilmaameen heshiisku leeyahay inaan fadlo badan ama waqti badan u dhaxaynin markii qofku uu iibka bandhigay iyo ka markuu aqbalay. maalan wuxuu yidhi intuu soo qaado shaarkan waxaan kaa siiyey $10, shaarku iska galay, odayaal buu iskala sheekaystay, heerahoodii buu ka waraystay, haddee bayd mahayo sheeko dheer baa la galay. waa dambe oo saacad kadib wuxuu yidhi waan kaa siistay. marka waxay leeyihiin hadalkan fara badan soo dhex galay wuxuu kala goynayaa heshiiska labadiisii qaybood. marka wuxuu been labadii ku celiyo yidhaahdo shaarka 10 baan kaa siiyey meega iibsatay, kana uu yidhaahdo haayo waan kaa siistay 10 kaa siistay. muddada markaa ama heshiisku ku kala go-ayo ama isku raacayo taxdiid ma leh oo lama jaango, laakiin curfiga loo celinayaayo waqti dheer oo loo arkayo qofku inuu heshiiskii aanu diyaar u ahayn hadduu dhex maro, waxa weeye heshiiska labadiisii dhinac baa kala go-ay lagu celiyaa marka ijaabka la yidhaahdo shaarka intaasaan kaa siiyey ma siisatay.
haddii waqti dhow uu yahay oo qof markuu shaarka toonbaa kaa siiyey qof salaamay oo dabeedna uu dee ka xishooday ka jeestay qofkii salaamay kadibna salaadkeedu kusoo maray hayo kaa siistay waxay moodaa in aanu waqti dheer u dhaxaynin oo markaa heshiiska labadiisii qaybood ay kala fogaanayeen waxaa kaloo ka mid a shuruudaha culimada ay tilmaameen siiqada iyo qaab heshiiska uu leeyahay ganacsigu in labada qof ay meel wada joogaan itixaad almajlis yacni inay meel wada joogaanoo markaasi haddee beed mahayo ay goob ku kala iibsadaan shayga qodobka noocan ah waxaa weeye majliska kulminaya labada qof waxaa weeye de waagi hore nasiib uu ahaa iminkana siyaabo badan oo kala duwan buu u dhici karaya waagii hore waxa uu ahaan jiray majliska wax lagu kala iibsadaa mid laba qof wada fadhiyaan oo jasadkooda iyo ruuxdooda wada joogto oo laba qof oo isla hal meel jooga inay yihiin markaa ismaqlaya qofkan wuxuu leeyahay kan maqlayo ka kale haddee beed mahayo maqlayo isna markaa laba qof meel wada jooga inay ahaayeen laakiin iminka waxaa laga yaabaa laba qof oo aan meel wada joogin inay haddana si kale u wada joogaan telefoon bay ku wada hadlayaan haddee beed mahayo facebooka iyo whatsappka iyo meelo kale oo fara badan oo dadku inay wada joogaan ay ka dhigan tahay oo marka kale hadlo kale u jawaabayo ama hadal ama qoraal markiiba ilbiriqsigiiba ayaa laga yaabaa inay markaasi jiri karaan waxaa kale oo jiri karaya iyagoo meelba wada joogin inta warqad laysu qoro qofku warqadii inay gaadho oo markaa hadday doonto sii socoto muddo sidii boostada la dhigay iyo haddee beedmaayo isgaarsiinta boostada iyo wixii lamid a tan laga sibado diro oo kale oo xafiiska inta kusoo dhaco qofkeedana loo keeno warqadii meesha lagu keenay iyo wixii lamid a marka majaalista noocaasa see la yeelayayo heshiis iyo maka dhici karaya meelaha noocaasa waxaan leenahay qeybta qoraalka ah qof baa warqad buu qoray ama ergey buu dirsaday waagan waa dhici jirtay culimmaduna way kaga hadleen kutubtooda fiqiga sida raafici iyo nawowi iyo culimada shaaficiyadu way ka hadleen haddii qof intuu qof diro ama haddee beyd mahayo warqad u dhiibo yidhahdo hebel u tago waxaa tidhaahdaa gurigeygii ku yaalay meel hebla tilmaanta laysla yaqaanay ahaa waan kaa iibiyey dabeedna ergeygaasu maalin sii socdo ama laba sii socdo ama warqadaas isbuuc sii socoto oo markaa warqadii markay gaadho ama ergeygii qofkii gaadho u sheego oo la yidhaahdo iib gurigaasaa iib lagaa iibsaday ama qof baa wuxuu doonaya kaa iibsado oo kaa siisto lacag intaa la eg haddii markaasi goobtaa uu ku aqbalo itixaad ilmajliski waa dhacay bay leeyihin macnihii majlisku wuxuu noqonayaa goobta ergeyga uu ku gaadho ergeygu qofkii iibiyaha ahaa ee markaasi wax laga iibsanayay ama warqadda goobta ay ku gaadho haddii markaa goobta warqadda ku gaadhay ama ergeygu ku gaadhay isagoo fadhiyo uu aqbalo kaanama wuxuu ka dhigan yahay qof isagoo la fadhiya inuu ka aqbalay iibki haddii markaa warqadaasi gaadhay uusan ka hadlin goobtii ka kaco meel kale aado kadibna mar dambe yidhaahdo waan aqbalay ma ansixin bay leeyihiin isaga majliskiisii iibku waa goobta warqadu ku gaadhay ama haddee bayd mahayo ergeyga la dirsaday uu ku gaadhay wey marka goobtaa haddii uu ku aqbalo heshiiskii waxaa wey heshiiskii waa xidhiidhsan yahay lama kala go-in haddaanu ku aqbalina ka aamuso waxaa loo qaadanaya qofkaas heshiiska inaanu aqbalin hadduu goobtii ka kaco goob kala tago mar dambe yidhaahdo wixii waan aqbalay heshiiskaasi ma ansixine waa dib lagu soo celiyaa ama ergeygii dib u jadiidiyaa fariintii lasoo faray iibka ahayd kadib markaa kan ka jawaabaa iibiyu waxaa isweydiin mudan dadka maanta isticmaala telefoonka oo kale iyaga qaabka yani majliska iyo goobta kulmin kartaa maxay noqonaysaa waxay culimadu leeyihiin mucaasiriinta ah sida majmac alfiqh islaami uu qabo oo go-aamadiisi ka soo baxay haddee beyd ku tilmaameen ee ku saabsanaa qaabka haddee beyd mahayo ama saameynta ay ku leedahay isgaarsiinta cusub iyo heshiisyada baac ay ku leedahay waxay tilmaameen telefon haddii lagu wada hadlayo inta khadku furan yahay khadkaa lagu wada jiro ayaa markaasi haddee beyd mahayo majliskii iyo fadhigii heshiisku ganacsigu uu taagan yahay haddii markaa qofkan intay wada hadlayaan khadku xidhiidhsan yahay haddii iijaabkii qabuulkiiba dhacan kaa iibiya iyo kaa iibsada dhacdo
majliskoodii waa midaysan yahay hal meel inay joogaan bay ka dhigan yihiin heshiiskaasaasuu ku ansaxay ku dhacay haddii marka qof yidhahdo qofka iibiyaha yidhahdo maalan waxaan kaa iibiyey gurigayga laisla yaqaanay inuu heblo ku yaalla qiimaha intaa laga baan kaa siiyey hadduu yidhaahdo oo ka kale intaanu jawaabin oo odhanin waan kaa iibsaday telefoonkii go-o waxay leeyihin heshiiskaasi marka labaad uu soo celiyo telefoonka qofku soo celiyo ma odhan karayo waan kaa iibsaday waa in kii hore ku celiyo yidhahdaa gurigaygi baan kaa iibiyey meel heblo ku yaalla intaasan kaa siiyey oo ijaabkii iyo bandhigii iibka waa in markaasi jadiidiya cusboonaysiiya kana markaasi uu yidhaahdaa waan ka aqbalay ama qiimaha waan kaa siista haddii telefoon kala go khadkii waa kala go-ay heshiiskii labadiisii qaybood baa kala go-ay ma ansaxayo in markaa lagu celiyaa iibkii labadii dhinac ay ku celiyaan waa kaa iibiyo kaa iibsada dib u yidhaahdaan haddii kale markaa heshiiskaasi ma ansixin oo ma dhicin waxyaabaha maanta lagu xidhiiro waxaa ka mid a emailada oo kale waxaa ka mid a whatsappka oo kale isna wuxuu ka dhigan yahay qoraalkii laysu dirayey warqadda lagu qoray buu ka dhigan yahay qofku markaa isagoo gurigiisii xafiiskii joogo email qoro oo yidhahda ama kambaniyadu qoran yidhahdaan hebelo waxaan kaa iibinay guriga halkaa ku yaala qiimaha waan kaa siinay qofku waxaa laga yaabaa maanta emailka furo beri buu furayaa marka uu furo ee akhriyo qoraalkii lasoo dhigay ee ku aadanaa in laga iibiyo gurigaas qiimaha lagaa siiyey markaaba waa inuu yidhaahdo inta fadhigaa uu fadhiyo uu ku furay emailka uu yidhahdo waan aqbalay ama qoraal ahaan hore yidhaahdo u gudbiyo markiiba waan aqbalay hadduu emailkii intuu arko iska xidho iska kaco meelaha iska aado kadibna maalin kadib uu dib u furo emailka dabeedna yidhahdo waan aqbalay ma ansixin bay leeyihin majliskii warqaddu ku soo gaadhay ama fariinta emailku uu siday ay ku soo gaadhay waa inuu ku jawaabaa markaasaa fadhigii midaysan yahay culimadu leeyihiin sidaa majmuc fiqh islaami baa qaba waana sida saxda ah oo warqadii la dhiibay gacanka dhiibka ahayd waagii hore culimadu ay ka hadleen tii un bay uga qiyaas qaateen waxay leeyihiin goobtaa fariinta ku soo gaadhay qofka ayaa majliskii iyo ka dhigan fadhigii ganacsiga ee lagu go-aaminayey hadduu markaaba hadlo ama qoraal ahaan ku gudbiyo waxa weeye haddee beegmahayo heshiiskii waa ansaxaya haddii kale uu goobtii intuu arkay ka tegey ka kacay waxay ka dhigan tahay inaanu aqbalin markaa heshiiskaasi ma ansixin bay leeyihin waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha culimmadu ay ka hadleen heshiiska ka mida ganacsiga shuruuddiisa waxaa ka mida inaan jees looga jeedin qofku inay dhab ka tahay haddii qofku ciyaar iyo jees uga jeedo waxa weeye dee ma ansixin waayo qofku waxaanu raalli ka ahayn milkigiisa ka bixi maayan ka iibsami maayaan kan kalena waxaan raalli ka ahayn milkigiisa soo geli maayaan haddii markaa kisi kaftan jees loo yidhaahdo adigu gaariga kaa siiba hadduu yidhaahdo isagoon diyaarkana kanara aanay dhabka ahayn waxa weye iibkaasi ma ansixin adinka waxaa ka duwan guurkiisoo ciyaar ma galo adigoo gabadhaada ii meheriyo 10 hadaad igu meheri ama 5 hadaad igu meheri ila kugu meheriye guurkaas waa dhac ciyaar ma galo sida xadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamayo laakiin iibka iyo ganacsiga iyo heshiisyada kale haddii qofku ciyaari kaftan uga jeedo marka heshiiskaasi ma ansixin lamana qabsan karo waayo ciyaari kaftan buu uga jeeday qofkan waxaan dhabka ahayn milkigiisa ka bixi maayaan ka kalena waxaan dhabka ahayn milkigiisa raalli ahaansho dhaba aan laga hay milkiisa soo geli maayaan waxaa markaa aan isleenahay qaabkii heshiiska loo geliyey shuruudihiisi inahaasay insha allahu tacala noqonayaan qeybta labaad waxaan insha allah kaga hadli doonaa labada rukuma kale oo dadka heshiiska gelaya iyo qaabka hadday beenmahayo geliyaan iyo waxla kala iibsanaya shuruudda uu leeyahay kaga hadli doonaa intaas lagu soo gabagabeynaa fadhigan wasala allahu wasalama وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين